waxay ku tidhi, waxaa kuu wanaagsan inaadan ii gacan qaadin, waayo waxaa ii imanaya reerkayga oo isoo booqanaya. Reerkii gabadha qabay oo ereygaasi qaadan waayey ayaa u arkay qosol qosol iyo sheeko. Markaasay ku dhaheen, maadaa reer leh, gabar xaaraana baa tahay, ma haddaad reer yeelatay inteed ka soo heshay. Iyagoo warkoodii wata, waxaa reerkii dul yimid nin boqor ah oo shanqarta fardihiisa iyo awrtiisa laga maqlaayo meel fog. Markii qasriga soo gaareen, gabadhii ayaa bilowday soo dhoweyn, marxabayn iyo farxad ka muuqanaysa hadalkeeda iyo wejigeedaba. Reerkii gabadha qabay oo yaaban baa ninkeedii wuxuu boqorka ku yidhi, waad awrta furtaan oo aad maalmo nala joogtaan. Markaasuu ku yidhi, uma iman inaadna martigelidaan, ee waxaan u imi inaan gabadhayda kaa kaxaysto oo aad dhegxumo iyo dhegahadal iyo garacaba isugu darteen. Markaasuu ka codsaday inuu u sii daayo xaaskiisa oo uu jecel yahay. Wuxuu ku yidhi, waxaad in badan dhahdeen reer ma lihid, aabba ma lihid, xaaraan baad tahay. Ma u jeeddaa inuu aabbaheed yimi, walaasheed ay u timi oo reer boqor ah ay tahay. Ma dareemaysaan? Deriskii oo dhan baa isku soo baxay oo warkii xiiseeyey oo maqlay in gabadhii in badan ay u haysteen inaysan reer lahayn oo gabar xaaraana tahay, inay gabar reer boqora tahay oo aabbaheed iyo walaasheed maanta marti u yihiin. Gabadhiisa ayuu ku yidhi, aabbo ma kaa kaxeeyaa reerkan? Maxaad talo aad qabtaa? Waxay ku tiri, aabbo ninkayga waan jecelahay, isagana wuu jecel yahay, laakiin reerkiisa ayaa ah kuwa aan lala noolaan karin. Ninkii inta ku jeestay buu yidhi, waxaan kaaga tegayaa gabadhan hal shardi, oo haddii aad u yeelayso guri ay keli ku tahay. Wuxuu aqbalay shuruuddii. Waxaan u samaynayaa buu yidhi guri ay keligeeda leedahay oo iyada loogu adeego. Iyagoo sheekadoodii wata, waxaa qasrigii soo gaaray ninkii u sarreeyey ciidanka reerkaasi. Markaasuu wargeliyey ninkii gabadha qabay, waa la dhacay fardaheennii, arigeennii iyo geeleennii. Wuxuu ku yidhi, ma kuwii baa nagu soo noqday, haddana xoolaheennii dhacay. Boqorkii gabadha aabbaheed ahaa wuxuu yidhi, kuwa idin dhacay? Wuxuu ku yidhi, aabbo kuwa in badanna dhaca oo noo soo noqnoqda, nagu arkayna ciidan yari, yaa haddana la leeyahay waa ay dhaceen xoolaheennii. Ciidankiisii ayuu faray inay raacaan ciidankan si looga soo celiyo tuugadaasi waxa ay dhaceen. Tuugadii dhexda ayaa lagu gaaray oo lagu laayay, wixii faktayna u carareen. Waxaan laga soo celiyey wixii ay reerkaasi lahaayeen oo xoolo ah, ari, fardo iyo geelaba. Dadka xaafadda oo dhan ayaa farxay. Gabadhii dhunkada oo maaragtay abaal badan inay ku leedahay oo sheegay. Gabadhii ninkii sidii buu yeelay, guri keligeed ay degan tahay buu sameeyey. Aabbaheed iyo walaasheedna waxay ahaayeen kuwa soo booqda waqtiba waqtigii. Xaafaddii waxay kula nooleen sharaf iyo karaamo iyo abaal badan oo ay u hayaan. Sheekadan waxaan kala baxaynaa xikmad ah qofka inaan lagu qiimeyn karin halka xaalad aad markaasi ku aragto.